سوبرستار كعنك شاروقان لبع عوان أيو سمنا متك كوادا كبلونا فيلم كينج وحودو فعل أكشن إنما أنا عادي إنه حبسي اللي ودو باي أكشن باكن أباتر وضعوا waxaa la dabcan sidaart aan lagu ma gaar sameynta filimada action ka King wuxuu noqonaa action inaba aan caadi ahayn Shaaruqan wuxuu ku matalaa international don ama tuug caalamiya saadirta waxaa la marka sceneskan hadda la duubay actionada xabsiga highlightka filimku noqon doonaa meel ku qorto marka waxaa la muuqaalkan hadda la duubay actionada xabsiga film King markii la daawado waa la yaabi doonaa odag wax uu sameyn doona sida shabakadaha kala duwan ee daabacayaan shabakada caanka Binkin Fila dhankii ka soo xigana tafaasiil dhameystiran ee bixinayaan maanta inna training waxaan arkaa King meel kasta markaan galabo waxaan arkaa Bombay sequence jailka lagu duubay waxa la xabsiga inaba caadi ma ahan waliba wuxuu noqon karaa la introduction scene ka muuqaalku ku soo galay ee shaashada si u badantahay filimkan Shaaruqan oo hogaamiyaha ka yahay soo kala gabadhiisa ku jirta saaxiibayaal Suhana Khan oo kaalinteeda qaadan doonto SRKN waxa lagu yaqaan inta badan Brian action avatar inuu sameeyo jawan soo uma talaba ka warqabna haddana King ayaa next project inaba aan caadi ahayn waxa la soo keenay shakhsiyaad kala duwan studio caanka loo yaqaan Bob Studio Bombay ku yaala lagu duubaa scene-kan waxa la sheegay Forian jail uu jooga xabsi micna indi aanu ku ooli maadaama Brian waxa la bartay adduunka waa symbol waaye meesha rabsad u sameysanasaa waxa laga wadaa sheekada Shaaruqan wuxuu joogaa dal aan dalkiisa ahayn ku xiran yahay xabsigaas uu ku jiro aan indi ahayn ayuu wuxuu ku sameeynaa xarfaan gangs ama waxa ku soo dhax weeraray xabsiga rag aan caadi ahayn oo bahal ah kadib raggaas ayuu meesha saaraya saadarta marka sidaarta aanada sadku u baahnaa saaxiibayaal loo dhisay haddana shaqada way socotaa waxa leeyahay ku dhawaad 200 qofood oo stunt performance oo ficilada halista sameeyaan ayaa shooting qayb ka ahayn sidoo kale tan waxa la sheegay Shaaruqan inuu sameeyo action inaba aan caadiyan xitaa waxa la sheegay 3 qofood oo international stunt ee qowra caalami ayuu sidaarta ananda u keenay lacagtaasna Shaaruqan la qaadaa sababta filimka SRK wuxuu ka yahay producer ayuu ka yahay sidoo kale tan saaxiibayaal filimkan waxa la arkay Abasheekh Bajansan ka warqabno halka sidoo kale tan Dabika Budukaani door muhiim ee ku leedahay xarfaanta kale ma wala tanin karaba JK Sharaf Arshad Warsi Jaydib Ahlawaad qof kasta ku jiro Raani Mukurja ku jirto almost 10 jilaa ka badan ku jiraan laakiin filimku wuxuu ku dhisan yahay Shaaruqan oo tuug caalami matalayo sidoo kale tan saaxiibayaal waxa la sceneska hadda xabsiga wuxuu noqday kan highlightka filimka oo la duubay la soo gabagabeynay waxa la sugan doonaa marka film King ee xilliga uu soo bixi doono waxay u badantahay sanadka dambe ayuu soo baxay haduu alla idmo October ama December 2026 Anil Kapoor xitaa door muhiim ah ku leeyahay yarkii filimkii kil ku caan baxragaaf Juwalna asigana kaalintiis ayuu qaadanaa SRK ee gabadhii Suhana Khan waxa la sheegay inay tababar aan caadi ahayn ay qaateen ayadoo xitaa Anil Kapoor waxa la filimkan uu ku matalay karakter adag ayuu ku matalaa oo muhiim ah laga yaabo inuu tuugada doonka caalami kamid yahay xataa lama yaqaan laakiin filimkan waxa la wuxuu qaadan doonaa waqti ahaan 300 maalmood ku dhawaad ee la duubay sida qorshaha uu yahay almost hadda xal 200 maalmood iyo ka badan ama 200 sanadkan gudihiisa inuu qaatay u badan tahay marka kullee waxba soo socda aan wada sugano ana ruudna muusikada uu garaaca qodobkaas aan ku bilaabanayno SRK iyo King uu qaaska